soo dhawaada meeshaan u jeedin aroosa ka dhacaya kadib kuwii arooska dhigaya iyagoo sawir iska gilgalaya waxa iimaanaya qof isqarinayo wuxuuna xadaa dhammaan hadiyadihii arooska la keenay kadib gabadhii aroosadeeda adeerkeedu meel fadhiya waxay ku dhehaysaa adiga sawir ma galaysid miya isagana wuxuu ugu jawaabaa aniga sawir ma galayga dhamaada xoogay kadib adeerkii intuu kuwan soo jeediyo waxa weydiinaa wixii hadiyad la keeno dhan yaa qaatay ayaga dhanna waa yaabiyiin waxay is weydiinayaan alaabtii xaday gabadhii shaqaalaha ahayd oo arooska cunada ka karinaysa kuwan waxay ku dhehaysaa ma laga yaabo tuug inuu alaabta inta qaatay daaqadaas furan ka baxsaday kii arooska intuu soo ordo fiiri maaga laakiinse wax dhan ma arkaayo mid ayaga kamid ah oo aan u malaynayo inuu dambibaare soo ahaa jiray ayaa wuxuu dhahaa meeshaan aaday u dheer tahay ma laga yaabo inuu tuuga ka baxsado laakiin aniga waxaan u malaynaya inuusan weli tuugu meeshaan ka bixin daaqadana wuxuu u furay inuu inaga nagu mashquuliyo si aan ugu malayno inuu daaqada ka baxay marka ninka tuuga dhismahan muusan ka bixin waqtigaana waa waqtiga ugu habboon aan booliska u wici karno midkii adeerka ahay oo sawirka xoogaa ka hor diidaya intuu soo boodo midkaan wuxuu ku dhaha adiga yaa taa marka waxaanoo dhan u akhrinaysid gabadhaana waxay ku dhehaysaa ninkan waa nin la yaqaano oo wanaagsan wuxuu nagu caawinaa in alaabteenni helno odaygan kalena wuxuu taagan yahay ninkan xariif waaye maalin bisad iga dhunta uu ii soo helay kadibkii dembiga baaraya hadalkiisa sii wadanaya ninkii adeerka ahay wuxuu ku dhahaa waxaan kuu sheegaya iga dhegayso mar walba waa wax wanaagsan in la iska baaro dadka arooskaaga imaanayo waxaa jiro dad iska dhiga in arooska laga wacay weliba iyagoo aan la wacan kadib xadaya alaabtii arooska la keenay sanadii 2022diina waxaa jiray nin iska soo dhigay inuu marti yahay kadib wuxuu tegay 8 aroos oo kala duwan weliba ninkaas aroosyadaas ma laga wacan ee wuxuu isku soo dhex qariyay dadkii martida ahay booliskuna waxay sheegeen inuu ninkaas xaday ku dhowaad 16,000 iyo alaab qaali ah sidoo kale waxaa ku jiray hadiyado marka hadalkayaan idinku dheereen ma la yaqaanaa qof kasta oo hadda meeshaan taagan gabadhan aroosadaana dadkii meesha jooga oo dhan intay si fiican u fiifiirisay waxay dhehaysaa qof walba meeshaan jooga waa aqaanaa ninkeeduna wuxuu dhahaa booliskii waa wacay weyna soo socdaan marka inta imaanayaan waa sugeynaa kii iska dhigaya dambibaarahana waa kanaaye wuxuu dhahaa tuuga meesha keliya oo ka bixi kara waa albaabkaas markana keena albaabkaas soo fiirinaynaye markii ay banaanka u soo baxeen waxay arkayaan nin arooska ka soo daahay oo jiifa albaabka laga soo galaya agtiisa midkii jiifa intuu soo kaco wuxuu taagan yahay sawiradii ma gasheen anigu weli sawir dhan ma gelinay dambibaaro eke meeshaas intuu jaanis ka helo wuxuu dhahaa qof walba oo ku jiray sawiradii xoogaa ka hor la qaaday waa ina baarnaa xoogaa intuu fikiro wuxuu u wacaa midkii sawirada qaadayay wuxuu ku dhahaa sawiradii aqaadoo dhan itusi kaamirmaankii intuu soo baxo wuxuu taagan yahay kuwaas aa u jeedid sawiro waaye laakiin weli sawiro kala kacsan ma ka dhigin haddana ma ku tusi karo marka foolfoolxumo waa marka alqurxiya isna wuxuu ku dhahaa laba goorba booliska markay imaadaan waa soo bixi laheed hadda ma itusti wuxuu u sheegaa marka inay kaamiradu taalo qolkii uu sawirada ku qaadayay ay weliba ku sii jirto boorsada marka haddana uu soo tusaayay soo baxaan markii uu kaamiradii soo bixi oo sawirada fiir isdhaho wuxuu arkaa in miimarigii laga baxsaday kaamirada qaybtii koowaad waxay noo maraysay kaamirmaankii oo kaamirada marka uu fiiriyo dhahayo miimarigii waa laga baxsaday midii aroosadaheed intay yaabtay waxay taagan tahay hadiyadihii keliya lama xadin xitaa sawiradeennii waa lagu darsaday odaygan kalaa wuxuu dhahaa maxaa isku dhibaynaa anaga dhan waa ognahay qofka sawirka ka maqnaayo qofaasna qof kale ma ahan ee wuxuu ahay adeerku dembiga waa iska fogeynaa wuxuu dhahaa aniga waa nii sheega sawir dhan inaa gala waa necbahay miiskaasa iska fadhiya cuntaan iska cunaayay dembibaarihii kuwan wuxuu u sheegaa inuu miimariga xadi karo hal qof oo keliya qofkaas wuxuu noqon karaa qof ka maqnaay sawirada sidaas darteed miimariga xaday ama wuxuu noqon karaa qof kale oo ay kaamiradu qabatay markii uu alaabta xadayay ma xasuusatiin ninkii bannaanka jiifay markii aan kicinay wuxuu dhahay aniga sawirada ma idhaafeen markii koowaad ma fahansanin sawirada uu ninkan ka sheekeynayo laakiin hadda wax walba waa fahmay waxa keliya uu ninkaas ka sheekeynayana waxay ahaayeen gabadhaas cuntakariyaha midaana way yaabaysaa markii uu dembibaaruhu iyada dembigii ku nabay isagoo hadalkiisa sii wato wuxuu dhahaa gabadhan waxaa qabatay kaamirada markii ay alaabta xadaysay midkan kaamirmaankana wuu arkay gabadhan oo alaab xadayso laakiin iyada iyo isaguba waa isla shaqaysanayay isagu wuu ogaay in sawirada loo baahan yahay sida keliyaha ee loo baabi'i kara sawiradana inay yihiin in miimariga la xado kadib iyadoo u diray si ay miimariga kaamirada uga bixiso markii aan inagu bannaanka u soo baxnay labadan qorshahoodu wuxuu ahay mid aad looga soo shaqeeyey shaqada kaamirmaanku waxay ahayd inuu inaga attentionkeena soo jeediyo si uu sawiro nooga qaado isla markaasna cunakarisadu waxay ku dhex jirtay shaqadeeda oo ahayd inay alaabta qaado daaqadana horay u sii furtay si ay anaga noogu mashquuliso waxay ogaatay inay kaamiradu qabatay markii ay bannaanka alaabta ula sii baxaysay bannaankana waxay kula kulantay ninkii meesha jiifay isna wuxuu ka diiday inay hore u sii socoto wuxuu ku dhahay adiga dib aa xafladda ugu laabanaysaa weliba anigaa ku raacayo markay aragtay midkan in uusan ka hor wareegin dhalay soo qaadatay kadib madaxay uga dhufatay kadib wax walba oo raad ahay oo iyada ka haray halkaasay ku baabi'isay kaamirmaanku midkan wuu u sacbinaa laakiin midii cunakarisadeeda waxay ku dhehaysaa hadalkaasoo dhan waa sheegtay waana isdaalisay
laakiin alaabta hagaageena daxannay isla markii waxa imaanaya ninkii mar dhaweeyta dhalada madaxa loogu dhufaayo oo laba bac oo waaweyn wato wuxuu dhahaa alaabta dhan waa soo hela waatana waxay ku qarisay gareeshka kaamiromaankuna wuxuu isku dayaa markii uu dembigu cadaaday inuu gabadha keligii dusha ka saaro iyaduna miimarigii hore u haysatay waxay dhahaysaa waa kana miimarigii ay igu dhahday kaamirada ka soo bixi labadaana ugu dambeyn waa la xiray ee hadda halkaas soo gaartay muuqaalka leeg noo saar soo dhawaada maanta waxaan idiin hayaa indha adeegii oo qof ah naagtan qaylinayso aad u jeediin intay soo gasho guri islaameed oo ay ku nool yihiin gabadhan iyo aabaheed ayay waxay ku dhahay aabihii gabadhan soo wareeji adiga maadan dhaline gabadhii yareedna waxay ku dhahaysaa soo bax aniga waxaa kula raadinaa waalidkaagii gabadha yar midaan hadalkeeda ma maqlayso kana wuxuu ku dhahaa gabadha aabaheed aniga waaye waxay taagan tahay macquul maahan anigana maiga dhaadhicinaysid in aad tahay gabadhan yarta aabaheeda iyada markaan fiiriye waxay u eg tahay qof caddaana adigana waxa u eg tahay qof aasiya ka imaaday wuxuu ku dhahaa marka midaan shaqadaada ma ahan gabadhan yarta aniga maana dhalin ee waa soo korsaday iyaduna hadalkaas markii ay ka maqasho maalin kadib waxay wacaysaa kuwa waalidiinta ilmaha ka qaata waxayna u sheegay waxyaabo badan oo qoraafaad ah kuwaasna yaa i wacdo waaye isla markii waxay imaanayaan meeshii ay ku noolaayeen gabadha yarta iyo aabaheed tanna waa issii diyaarisa meeshaanay ku dhakanaysa si ay u maqasho waxyaabo ay ku wada sheekaysanayaan markii uu aabbuhu albaabkii furo wuxuu arkaa kuwaanuu ku dhahaya somateed Masar Hernandez markii uu ku dhahana haddana waxay dhahayaan midaan gabadhaada miya wuxuu dhahaa sax waaye gabadhayda waaye ee dhibaato miyaa jirto mar saddexaad waxay weydiinayaan ma noo cadday kartaa inaa gabadhan dhashay waxaana loo soo sheegay inaa gabadhan yartaa dhibaato ku haysidee intuu baxo xoogaa kadib u soo laabanaa isagoo wada waraaqadahan intuu siiyo wuxuu dhahaa waraaqadahana u jeediin waa waraaqadihii gabadhana ku korsaday kuwan waraaqadaha marka ay fiiriyaan waxay arkayaan inay wax walba sax yihiin ninkaana lagu been abuuranayo keliya waxay u sheegayaan inay ku soo qaldameen haddana ay raali gelinayaan iyagana la soo siiyey warbixin qalad ah gabadhii iyo aabaheedna iyagoo albaabka taagan waxay arkayaan naagtii maalin dhaweeyta ku qeylqaylinaysa intuu u waco wuxuu ku dhahaa waan ogaa inaa kuwaas adiga wacday waxaana tahay naag maskaxda looga jiro iyadana iyadoo xanaaqsanay waxay ku dhahaysaa ma aqaanin kuwaas waxaa ku akhrisay iyo raabkaa saartay laakiin aniga arrintan ma ka harayay duqdan sababta ay u qaylqaylinaysa wax kale ma ahan ee waa macalimad gabadhan yartaa wax barto maalin kale iyadoo gabadhii yarteed iskuulka joogto oo la maraya xilligii qadada waxay ku dhahaysaa aabbahan intaan keliya muu kusoo siiyey qada ahaan gabadha yartaana waxay dhahaysaa qadadan mar walbaa cunaa waana jecelahay laakiin midaan gabadha yartaa ma aaminayso waxay u sheegaysaa inaan waxaan la aqbali karin haddana ay soo baxdo si ay caafimaadkeeda u soo baarto dhakhtaradaanay u keeneen dhakhtaradii markii caafimaadkeeda baartana waxay dhahay gabadhan caafimaadkeeda waa mid fiican laakiin midaan way soo indha adagta waxay taagan tahay haddii aan ku tusi lahay aabaheed wuxuu qada ahaan u soo siiye waa yaabi lahayd mar labaada intay wacdo kuwii ilmaha qaadayay waxay u sheegay inay ugu imaadaan iskuulka xoogaa kadib midkii aabbaha ay isagoo shaqadiisa iska jooga oo iska shaqaysa ayaa la soo wacaa waxaana loo sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan oo iskuulka u yimaado markii uu yimaado waxay ku dhahayaan waxaa noo sheegtaa sababta ay gabadhaada uga eg tahay qof caata isna teleefankiisa waxuu ku tusaa inay gabadhan xanuunsan tahay eena daawo u socoto markii ay arkaan caddeemaha uu tusanna waxay ku dhahayaan waa ka xunnahay inaan mar labaad kugu qaldannay weyna isaga tegayaan macallimadii waalatay mar labaad waxay bilaabaysaa qayladeedii laakiin markaan gabadha yara aabaheed waxay ku dhahaysaa anigaa wax walba fahansiinaya macallimadda waxay dhahee aniga markii aan dhiga jiray iskuulkaygii hore ardada aan iskuulka la dhigto way i dhibaatay jireen markii ay ogaadeen in aana haysan aabba saxa waxayna igu tilmaami jireen inaa qashinka liga soo helay maalin maalmaha ka mid a waxaan diiday inaan iskuulka aado aabbaheena waxaan u sheegay dhibaatooyinka aan iskuulka kala kulmo isaguna isla markii go'aan uu hore ka qaatay magaalkii dhanna waa isaga soo guurnay anigana maalintaas kadib waxaan ogaaday inaan haysto aabba fiican haddana sidaana meesha u joognaa midaan sheeko dheer oo looga sheekeeyey kuwan waxay ku dhahaysaa anigooni ogeynaani xukumiyey waana ka xumaay haddana qaladka aan idinka galay cafis ma laho laakiin waxaa rabaa inaa igu qaadatiin iyaguna muku adkaynayaane way iska cafinayaan muuqaalkana intaanu ku ekaya hadda halkaas soo gaarta leegnoo saar gabadhan yartaa hooyadeed oo taleefanku hadlayso intay dhinaca gadaale ugu timaaday xarig ku xire sidoo kale gabadhan kalena aabaheeday waxay ku xirey xarigga dhinaciisii kale labadan gabdhood oo yaryarkaana waxay rabaan inay waalidiintooda isbaraan si ay isku guursadaan xoogaa kadib hooyada waxay dareemaysaa inuu xarig ku xiran yahay sidoo kale aabbuhuna wuxuu arkaa inuu xarigga ku xiran yahay isla markiina labadoodu waxay bilaabayaan inay xariggii soo raacaan sidii ay xarigga u soo raacayeen ugu dambeyn waa kuwaana way isku dhaceen midaan keeggii ay wadatay markii uu ka daato midkan waxay ku dhahaysaa ma waxaad u baahan tahay indhaha xariggaana ma waxaad iigu xirtay inaa aniga ifoodayso labadii yaryarkeed markay arkaan inuu mashiinkoodu fashilma rabo meeshan oo dagaalka dhici rabo way soo ordayaan midaana hooyadeed waxay ku dhahaysaa gabadhan waa saaxiibaday marka ma imaan kartaa xafladeeda dhalashada hooyadu gabadheeda hadalka ma ka diidayso way ka ogolaanee laakiin gabadhan kale markay aabaheed ka codsatay inay bixi karto wuu u diidaa wuxuu dhahaa aniga badanaa shaqadeyda ku mashquulsanahay midaan yartaa ma quusanaysa intay soo orday waxay ka daba imaanay saaxiibadeed aabaheed boorsadii intay ka xadday isla markii hooyadeed u imaanee
intii kale aabihii iyo gabadhiisii waa kuwana waxaa soo wacay labadii kale si ay boorsidiisa u siiyaan. hooyadu markay albaabkii ka furto way baxaysaa si ay boorsidiisa ugu doonto. labadana waxay ku faraxsan yihiin in qorshooda labaad uu shaqeeyey. boorsidiisa intay gacanta ka saartay waxay dhehaysaa boorsadaadii waaye ma aqaani sida ay gabadhida yartaa gacanteeda kusoo gashay. kadib isaguna markii uu u mahadceliya waxay ku dhahayaan gudaha soo gala si aad sheex u cabtiin. xariifkan xoogaa wuu is-adadkeena laakiin ugu dambeyn wuxuu ogolaanaya inuu gudaha galo. labadan gabdhood oo yaryarkaa waxay u muuqataa inuu qorshahoodu shaqeeya haddana ay ku guulaysteen inay waalidiintooda isla fadhiisiyaan. sheeko dheer kadib hooyadu midkan waxay u sheegaysaa inay tahay single mother keligoodna ay nool yihiin. sidoo kale isaguna wuxuu u sheegaa inuu yahay single father gabadhiisana uu keligiis la joogo. sheekadooda iyagoo watay hal mar waxay maqlayaan gabar yar oo ku qaylinaysa iyo caawiya isla markiina labadooda dhinaceeday u ordayaan. midaan kale waxay weydiinayaan waxa dhacay iyaduna waxay u sheegay inay saaxiibadeed gudaha gashay ayna kasoo bixi weyday. kadib labadooduba waxay bilaabayaan inay albaabka furaan laakiin way ku guuldaraysanayaan. midda yari gudaha kuma jirto ee samiicadaanay meesha dhigtay si ay labadan u mashquuliso. iyadiina waa tanaahay waxay lugta ka banjarinay gaarigii uu watay saaxiibadeed aabaheed. hawsheeda markii ay soo fuliso way soo orday gudaheena soo galay. saaxiibadeedna waxay u sheegay inay isboosisay masqusha gasho. kadib dun ay meesha kusii diyaarisay albaabka ay ku xirtay ka wareejinay masqushana gudahii u galay. xoogaa kadib waxaa meesha soo gaaraya labadii oo kashawiito soo qaatay. ugu dambeyn waxay ku guulaysayaan inay albaabkii furaan. kuwan iyagoo isku maleeyay inay gabadha yar badbaadiyeen ayaa gabadha aabaheed waxau dhahaa waa ku mahadsantihiin sidaa ii soo dhaweyseen hadda waxaan rabnaa inaan sii baxno. iyaduna waxay dhehaysaa haddaad timaadeen hadda siday u bixayseen xoogaa maa nala joogtiin. laakiin midkan wuxuu ku adkaysanaa inuu baxo haddana ay u taalla shaqa laga raba inuu qabto. markii ay baxaan midaan yara hooyadeed waxay ku dhehaysaa saaxiibaday aabaheed ma iska guursatid. laakiin hooyadu mideeda yar waxay u sheegaysaa waxaas in aysan macquul ahayn laakiin ay waayuhu wax walba macquul ka dhigi karaan. isla markii labadii hadda baxdaa soo laabanaysa midkaana wuxuu dhahaa gaariga iga hilaabay lugta iga bajarta macnaha. kadib hooyada midkan waxay weydiinaysaa hadda maxaa kuu qabtaa ma waxaad rabtaa inaad taksi kuu waco. laakiin isagu wuxuu taagan yahay anigaa wacday intuu ii imaanaha idinla joogaynaa. iyaduna waxay u sheegaysaa inay mar walba soo dhoweynayso. labadana waaba sidii ay rabeen qorshooda u shaqeeyey. muuqaalkan intaanu ka ekay hadda halkaa soo gaarta leeg noo saar.